بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله waxaan qaadan doonaa casharkeennii shanaad ee koorsadii aan ku sharaxaynay sida daatada loo maareeyo loona analyze gareeyo anagoo isticmaalayna stata casharkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay sida daato loo soo geliyo statada amase daata ku jirtay stata loo save gareeyo ka hor intaanan gelin marka ama daata aanan soo import garayn ama aanan daata soo gelin waxaa muhiim ah inaan naqaano meesha aan ku shaqaynayno ama folderka ama directoryga aan ku shaqaynayno waa inaan naqaanaa directorygaas waa inuu noqdaa marka meesha daatooyinkeena ay ku jiraan ama daatooyinka aan ku save garaynayno ama daatada aan kasoo qaadanayno waa inay noqoto so haddii aan isla fiirino meesha hadda aan ku shaqaynayno oo statada hadda meesha ay ku shaqaynayso waa inaan ogaanaa si aan u ogaano marka waxaan isticmaali doonaa command loo yaqaano bwd oo ah ama loo soo gaabiyo print working directory so haddaan execute garayno waxaa noo soo baxaysa meesha hadda aan ku shaqaynayno inay tahay laptopkayga waxaa ku shaqayn doonaa qaybta d folder loo yaqaano wd meeshaas waana meesha daatooyinkayga dhan ay ugu jiraan haddii aad rabtid inaad bedeshid working directorygaaga oo aad usoo bedeshid folderka aad hadda ku shaqaynaysid oo daatadaada ay kugu jirto haddaa rabtid inaad ugu soo bedeshid waxaad isticmaali kartaa drop down menuga adoo tegaya file kadibna kad sii dooranaysid change working directory kadibna waxaad dooran doontaa folderka aad rabtid inaad working directoryga ka dhigtid ama folderka daatadaadu ay kugu kaydsantaha oo rabtid inaad ku shaqaysid meeshaas ayaad dooran doontaa kadibna okay ayaad dhihi doontaa amase command waxaad isticmaali doontaa cd oo ama loo soo gaabiyo change directory kadibna meesha folderka daatada ay ku jirto tusaalahaan aniga folderkaygan almost hore ugu jira laakiin isla asaga haddana ku practice garaynaa d ayay daatada ugu jirtaa kadibna waxaa leedahay colon slash folderka daatada ugu jirta waa wd kadibna quotation markska iisoo xir commandigaan isticmaali doontaa kadibna enter haddaa dhahdid idanna qaabkaasna wuu kuugu bedeli karaa haddii marka commandiga aad ku wareertid waxaad isticmaali doontaa dropdown menuga meeshaana tegi doontaa janji working directory kadibna meesha folderka aad rabtid inaad u bedeshid ayaad isticmaali doontaa insha allah si aad u ogaatid folderkaas inay daatooyinkaa kugu jiraan in kale waxaad isticmaali doontaa ls waa listi aa loo soo gaabiya haddaa fiirisid marka daatooyinka aan ku shaqayn doono waa kuwaana maanta ama aan soo geli doono qaybtan waa daato oo excel ah qaybta ku xigto waxaa waaye daato haddaa aragtiin saftan waa daato sbs qaybtan kale waa daato coma separated ah ama delimited data ah qaybta dambana waxaa waaye dta extensionka dta waxaa iska leh stata ayaa iska leh so daatooyinkan ayaa maanta ku shaqayn doona si marka aan u soo gelino daato si aan u soo gelino statadaas aan u soo gelino laba nooc ayaa la isticmaalaa imaa daatada aad soo gelinaysid inay tahay daato oo hore ugu jirtay ama memoriga statada ku kaydsaneyd ama daato bannaanka taala oo folder adiga ku gaara kugu jirto qaybta waxaan ka bilaabaynaa marka daatada ku jirto ama ku kaydsan maskaxda statada si daatadaas marka aad u soo gelisid dabcan waxaa isticmaali kartaa command ama drop down menus ina menu tagtid steps aa martid qaybta marka drop down menus haddaa ku bilowno si aad daato maskaxda statada ku save garaysan aad u soo gelisid statada waxaad tegi doontaa file thenna waxaad tegi doontaa example data sets ayaad ku dhufa doontaa thenna waxaad kusii dhufa doontaa example data sets installed with stata meeshaasaa ku dhufa doontaa markaa meeshaas ku dhufatid marka waxaa kuu soo baxaya dhammaan daatooyinka ku kaydsan ama ku dhex jira maskaxda statada tusaale ahaan haddii aan rabno inaan soo gelino statada daatada ugu horeysa oo auto oo dta waa soo sheegna oo extensionka dhammaan daatooyinka statada ah ayaa dta extensionkaas leh si marka daatadaas aad usoo gelino waxaad ku dhufa doontaa use waxaad ku dhufanaysaa use ayaad ku dhufanaysaa kadibna meeshaan waa kasoo baxaya haddaan fiirino markaa qaybteena oo result windowga ah waxaa noo soo galay daato automobile data oo 1978 ah commandiga daatadaas aad kusoo geli kartid marka waa kana this is the command ama waa kana haddaa meesha ku dhufatid hal mar haddaa click ku dhahdid qaybtan oo command windowga maxaa kuu soo galay sys use auto
.dta haddaa ujeediin sys use waxaa loola jeedaa waa system use data systemka ku jirta datada magaceedana waxaa loo yaqaanaa auto ayaa loo yaqaanaa .dta na waa extensionka nooca daatooyinka startada waa haddaan ku dhufanno isla commandigii hore ayaa haddana excuse garesma kii oo kale ayaa soo repeat garesmaayo haddaan fiirino marka waa kuwana daatooyinka ku jiro sorry variableska datada ay ka kooban tahay variableska ay ka kooban tahay haddii aan rabno marka datadan inaan aragno dabcan hadda waxaan ujeednaa just commandigii datada loo isticmaalo iyo variableska datadan ay ka kooban tahay datada si aa u aragtid marka waxaa isticmaali doontaa laba nooc ayaa la isticmaala ima in la isticmaalo wax loo yaqaano aad tagtid qaybtan toolbariska kadibna aad ku dhufatid data editor ama waxaad ku dhufan kartaa data editor browse iyo data editor edit labadaasaa kala jirto maxay ku kala duwan yihiin marka labadooda midna waxaa waaye markaa ku dhufanno kan hadda markaa ku dhufanno datada waxaan ka bedeli karnaa meesha hadda saddexda ku qoran oo kale afaraa ka dhigi karnaa haddaa fiiriseen waa edit garay karnaa datada edit garay karnaa haddaan marka kan ka soo baxno ee aan ku dhufanno kii kale oo data edit browse editor browse ahaa haddaan ku dhufanno datada waxba kama bedeli kartid browseka macnaheedu waxa waaye datada waa arki kartaa laakiin waxba kama bedeli kartid hadda marka waxaan ku aragnay annagoo isticmaalayno ii sheeg toolbariska ayaa ka aragna sooma qaybta commandiga markaan rabna inaan aragno waxaa qori kartaa edit ama waa soo gaabi kartaa ed bis dheh ed haddaa dhahdid qaybtii hadda processka aan maraynay oo kale ayaan isla daatadii ayaan ku helnay haddaa aragtiin isla daatadeeni waa tanaa oo wax ka bedeli karno editka macnaha waxaa ka bedeli kartaa waa qaybta kale oo browska ah browse oo caadina waa qori kartaa br-na waa soo gaabsan kartaa br haddaa dhahdidna isla processkii aan drop down menuska ku maraynay ayaan command ku marnay so waa tanaa daatadeenii oo aanan waxba ka bedeli karin haddaa meeshaan ku dhufatid wax ka bedeli so this is habkaani waa habka loo maro soo gelinta staatada daato ku kaydsaneyd systemka staatada almost hore ugu kaydsaneyd haddii aan rabno markaa daato staata ah oo folder igu jirto aniga computerkayga ama laptopkayga meel kamid igu jirto inaan soo geliyo waxaan tegi doonaa dabcan hadda ma isticmaalayno commandska waxaan isticmaali doonaa drop down menuska so waxaad tegi doonaa si usoo data usoo gelino file ayaa tegaysaa kadibna waxaad tegi doontaa open kadibna waxaad tegi doontaa folderka aniga almost datada isticmaalaya isla markii datadii hore iga soo qabtay laakiin adiga inuu saas kugu soo qabo waa laga yaabaa waxaad tegi doontaa toos stepskii caadigaa mari doontaa waxaad tegi doontaa folderka datadu ay kugu kaydsan tahay ee caadi u tegi doontaa kadibna datada ayaad ku dhufanaysaa double click ayaad ku dhahaysaa datada saasay kugu furan tahay si ay datadu inuu kugu furantay in kale aa ogaatid maxaa samaynaysaa oo datada aa u aragtid br iska dhe ama edit br haddaa br aan dhahno daatadeena waa tanaa haddaa fiirisin daatadeena waxay ka kooban tahay id-ga ardayga total markska uu keenay statuska inuu baasay iyo inuu dhacay dabcan baaskan midna waa baas iyo fail midna waa yes iyo no tan waa gradeka uu keenay tan waa inuu dhacay iyo inuu baas dabcan kuwaan soo ceshan yihiin agekiisa age groupkiisa daata noocaas ka kooban okay so haddaa xasuusatiin daatadaa markaan soo furaynay waxaan tagnay file kadib waxaa opena ku dhufanay kadib daatadii soo furana sooma step caadi drop down menus isticmaalnay isla drop down menus isticmaalnay commandigeeda waa kana haddii commandigan aan isticmaali lahayn d use kadibna folderka daatada igu jirto wuxuu ahaa d meesha igu jirto waa d folderka igu sii kaysantaha waa wd ama working directory daatada magaceedana waxaa loo yaqaanaa scores intaa haddaan qoro oo qaybta commandiga aan ku qoro oo inter dhahana isla daatadii ayaa ii soo baxayso so faa'iidada ay leedahay xitaa haddii aad staatada faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid ah xitaa haddaad drop down menus ama steps caadi aa martid ee daatadii aad soo gelisid ama aad shaqo qabatid commandiga shaqadaas aad qabatay waxay kuu soo geli doontaa qaybtan oo history windowga ayay kuu soo geli doontaa kan marka waa sida daato staata ah oo folder kugu kaydsan aad u soo geli kartid staatada haddii tusaale ahaan aan haysto ka warrama daato oo excel data ah
haddaa haysto ee aan rabo inaan soo geliyo statadaas maxaa isticmaalaya drop down menuska ayaan ku soconaynaa dabcan waxaan tegaynaa file kadibna waxaan kasii tegaynaa import kadibna nuuca daatadeena ay u kaydsantahay dabcan daatada excel sheetka ah oo aan rabno waa qaybtaas kore waa haddaa ku dhufanno kadib waxaa kusii dhufanaysaa browse meesha daatada kugu jirto browse ayaa ku dhufanaysaa kadib waxaa kuu soo bixi doonta ani dabcan folderkayga dhowr maraa isticmaalay soo daatada toosa igu soo baxday adiga laakiin same stepska folderka ay kugu jirtaa tegi doontaa kadibna daatada excelka ah ayaa kuu soo bixi doonta kadib double click ku dheh markaad double click saas ugu soo dhahdid oo daatada qaabkan ay kugu soo furanto waxaa muhiim ah inaad tick saartid import first rows as variable names in rowga koowaad uu kuu noqdo variable names inuu kuu noqdo soo kaas tick saar kadibna waxaa dhahdaa okay meeshan wuxuu noogu soo qoraa haddaa ujeediin do you want to continue and replace data in memory ma rabtaa inaad sii socoto oo daatada memoryga hore ugu seefsaneed aad tan ku bedeshid ilaa waxaa ognaa annaga data hore memoryga noogu jirta istaatadan ciladeeda waxaa ka mid ah laba daato hal mar leeslama geli karo sidaa darteed yes ayaa leenahay yes haddaa dhahno macnaheedu waxa waaye daatadii hore oo scoreska ahayd meesha way ka bixi doontaa waxaana ku bedelmi doonta daatadan dambe ayaa ku bedelmi doonta so okay ayaa leenahay yes ayaa leenahay haddaa fiirisid marka hadda waxaa noo soo gashay daatadeenii dambe ayaa soo gashay daatada dambe oo soo gashay oo hadda anaga stepeska caadiga au marnay commandiga au mari lahayn waa kana this is the command oo ku habboon daatadaas dabcan commandigan hadda waa dheer yahay qaab ka fudud oo yana waa sharixi doonaa insha allah casharada soo socota ayaan ku sharxi doonaa maadaama commandiga hadda qaabkan uu dheer yahay qaab yaroo ka fududna waa sharixi doonaa insha allah so haddaa inta dhahno daatadan haddaa u fiirisid waxay kooban tahay 5 variable iyo 38 variables ayay ka kooban tahay haddii daatada inaad aragtid maxaa samayn kartaa br browse waatana this is the data haddaa fiirisin patientii qofka jinsigiisa age groupkiisa blood pressurekiisa xilliga hore meeqo ahaa markii la daaway ama uu daawo qaata kadibna meeqo noqdo camal data noocaas ku saabsan okay hadda waxaan soo gelinay data excel ah sooma haddii data tusaale ahaan aan haysano delimited data oo ama comma separated data oo kale haddaa haysano waxaan isla stepska maraynaa file aan leenahay kadib import aan leenahay kadib waxaa dooranayna text data ama delimited csv data datadaas aa dooranayna kadibna folderka ay datadaas ku jirto dabcan qaybtaas ayaa dooran doontaa folderka inaad soo dooratid then aniga waxaan tegi doonaa hadda stepski waxaan tegi doonaa new kadib wd kadib waxaan tegi doonaa scores dabcan waxaan haystaa data csv ahaan u diyaarsan waxaan ka haystaa wax loo yaqaan qaybtan scoreska ayaa haystaa so scoreskaas ayaan ku dhufanayaa kadibna okay ayaa leeyahay dabcan daatadii hore ku jirto waa inaa safe dhahaa hab safetan markasta oo yes aad dhehaysid ka fudud oo aad samayn kartid waxaa waaye daata kasta markii aad rabtid inaad daata cusub soo gelisid waxaa samayn kartaa inaad meeshan clear ku qortid dabcan waa isla arki doonaa haddaa samayn doonaa si marka hadda waxaan soo gelinay daato stata ah ayaan baranay si loo soo geliyo waxaa kaloo baranay daato oo excel ahaan u diyaarsan sida loo soo geliyo statada waxaa kaloo baranay sida daato delimited data ah ama comma separated data ah si loo soo geliyo waa baran waxaa kaloo sharaxaynaa haddii aan tusaale ahaan haysano daato oo sbss data ah data sbss ayaa haysanaa waxaan rabnaa inaan u soo bedelno ama soo gelino statada see u gelinaynaa waxaa samaynaysaa isla processka mare file tagi kadib waxaa ku dhufa doontaa import kadib meeshan ayaa waxaa ka dooranaysaa sbss data ayaa meeshan ka dooran doontaa kadibna waxaad tegi doontaa fileka datadaas ay kugu jirto dabcan fileka datada igu jirto waa kanaa employee data ayaa loo yaqaanaa so double click igu dheh kadibna okay dheh waa inaa daatadii hore haddaa daatadii hore hadda aan tusaale ahaan clear soo dhahno intaanaan kan gelin ka hor daatadii hore dabcan markaad rabtid inaa daata hore kugu jirtay maskaxda istatada aad ka tirtirtid waxaad isticmaali doontaa commandiga loo yaqaano clear haddii clear aad dhahdid ee br aad dhahno
waxaa ujeedaa meeshaan wax daata ah kuguma jiraan sababtoo daatadii kugu jirtay waad ka tirtirtay clear ayaa dhaha daata cusub inaan soo gashano haddaan rabno waxaan samayn karnaa waxaan samayn karnaa inaa daatadii hadda sbs kaa soo gelinaynaa soo file tag kadib import tag kadib waxaa tagtaa sbss data tag kadib browse dabcan daatadeeni waatana double click ku dheh kadibna waxaa ku dhahdaa okay haddaa hadda okay ku dhahno ma noo keeni doono kii una dhahayay daata horaa ku jirtee ma waxaa rabtaa inaad daatadaas hore ku bedeshid ma noo soo saari doono sababta almost daatadii hore waa delete garaynaa ama meesha waa ka saara haddaa fiirisiin marka daatadan dambana br aa dhahno dabcan br-ta waa browse waxaana ku sharxnay inaadan daatada markaad rabtid inaad daatada fiirisid kaliya laakiin haddii aad daatada inaad wax ka bedeshid rabtid maxaan dhahaynaa edit ama ed isu soo gaabi this is the data datada oo sbss ka oo from sbss to stata aan soo gelinana waa tanaa daatadan noocaan ah ayay ka koobanta okay nice so hadda marka waxaan rabnaa tusaale ahaan daatadan oo sbss ka ahayd oo aan usoo bedelnay stata daatada ayaan waxaan rabnaa tusaale ahaan inaan u bedelno daatadan waxaan rabnaa inaan u bedelno excel data isla markaasna aan folderkii hadda aan ku shaqaynaynay aan ku save garayno waxaan samaynaynaa file kadibna waxaan leenahay export kadibna daatadan waxaan u bedelaynaa to excel kadibna waxaan dooranaynaa qaybtan save asta ah ayaan waxaan ka dooranaynaa daatada meesha aan ku save garayna dabcan daatada waxaan ku save garaynaynaa wd dan ayaan ku save garaynaynaa waxaan u bixinaynaa tusaale ahaan just excel ahaan noogu bixi excel data magacaas igu bixi meeshaana ku save garayna dabcan kadib okay dheh kadib daatadan aan save garaynayno variableska ugu horeeya qaybta ugu horeysa ama fast rowga ugu horeeya waxaan rabnaa inay noqdaan variable nameska rowga ugu horeeya daatada waxaan rabnaa inay noqdaan variable nameska so kaas waa inaad tig saartid kadibna okay ayaa leen haddaad fiirisiin daatadeennii haddaa folderka hadda dib ugu laabano waxaan arki doonaa daatadan isla daatadan hadda ku jirto statada ku jirto ayaa waxaan u bedelnay excel ayaa u bedelnay magaca u bixinay dabcan waa xasuustiin oo waxa u bixinay excel data ayaa u bixinay so haddii aan rabno marka daato noogu jirto statada noogu jirto haddii aan rabno inaan u save garayno ama folder gooni aan ku save garaysano annagoo weliba daatada nooceeda u bedelayna excel ama noocaan rabno u bedelayna qaabkan ayaa mari karta ama simply isla daatada nooceeda ah oo isla statadeeda ah haddaa rabtid inaad u save garaysatid waxaad tegi doontaa file kadibna processka caadiga oo taqaanid oo save asaa dhihi doontaa folderka aad rabtid ayaad ku save garaysan doontaa I think taas inay wax very easy ah tahay oo qof kasta uu samayn karo aan rajeynaya